idan migan baanahay madadii sharciga iyo madaxdana deeca milatariga xoogiyo idan migan baanahay madadii sharciga iyo madaxdana deeca dawma makaabsado miirihii dhulkaygiyo milkida lilaalsha gumaystaha midida dheer nacabka u midhidima gumaystaha midida dheer nacabka u midhidima malagee sidaanahay gumaystaha midida dheer nacabka u midhidima gumaystaha midida dheer nacabka u midhidima malagee sidaanahay maqarsaar shisheeyo mogoli adoonsiga maragna waad u haysaan maragna waad u haysaan maqarsaar shisheeyo mogoli adoonsiga maragna waad u haysaan maragna waad u haysaan waxaa maanta sharaf weyn inoo ah inaan halkan ku soo dhoweyno madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo booqasho noogu yimid madaxweyne ku soo dhawow Puntland oo adigana ku jecel Soomaalnimada jecel ku soo dhawow dadka reer Puntland waxay diyaar u yihiin inay kugu soo dhaweeyaan qalbi furan iyo gacmo furan xaaladda ay ku sugan yihiin iyo horumarka ka socda iyo dowladnimada ka jirta aad aragto la qaybsato talooyinkaaga iyo fikirkaaga dowladnimada diyaar u ah inay dhageystaan ka qayb qaataan horumarka Soomaaliya geedi socodka nabadda Soomaaliyeedna ay kugu taageeraan si Soomaaliya ay u gaarto qarannimo dowladnimo hagaagsan nidaamkii iyo horumarkii Soomaaliya lagu aqoon jirayna iyo galeelideeda diyaar oo inay ka qayb qaataan madaxweynuhu wuu nala joogayaa muddo dhowr bari ah arki doona dalka iyo nabadda ka jirta iyo nidaamka dowladnimo ka jirana marka madaxweyne ku soo dhawow Puntland بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan maanta aan runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan halkan aan socdaal ku joogo magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland iyo mudan madaxweyne adiga iyo dowladdaadaba sida sharafta leh oo wanaagsan ee aad noogu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga xaqiiqatan laba jeer hore yaan baajinay duruufo shaqo awgeed maanta se aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay inaan arko intaasoo qof oo reer Puntland reer Garowe ah inay sidaas wanaagsan noo soo dhaweeyaan oo ay jidadka taagnaadaan oo calama qoyan ay noogu soo dhaweeyaan aad iyo aad yaan uga mahadcelinayaa aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay halkan waxaan u imid inaan arko suu sheegay madaxweynaha xaaladda halkan ka jirta ay koow ka tahay inaan xoojino nabadda aan xoojino oo aan ka shaqeyno dib u heshiisiinta waxaan jeclahay inaan tago dhowr magaalo oo aan dadka la kulmo cuqaasha salaadiinta dadka maxaan ku raahdaa aqoon-yahanada civil society-ga jaamacadaha ardada dhigta guud ahaan inaan la kulmo oo ay la wadaagaan iyaga naftigooda waxa meeshaan ka jira aniguna aan la wadaago taladeeda iyo waxa aan ku biirin karo insha Allahna wax badan yaan isweydaarsan haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ku soo gabagabeynayaa runtii waa soo daahay
reer garowe reer puntland raalli ha ahaadaan waa soo daahnay waxaana u soo daahnay wax kale ma ahayn duruuf shaqo awgeed insha allahna waa ku soo noqonayna aniga iyo dowladda federaalka insha allah hadduu ilaah yirahdo waa mahadsantihiin madaxweynaheena u soo dhawow madaxweynaheena u soo dhawow madaxweynaheena u soo dhawow madaxweynaheena u soo dhawow shacabku ku salaamaya satirkay ha ku ilaaliye shacabku ku salaamaya satirkay ha ku ilaaliye sadaal qurxoon iyo sinaan iyo cadaalad baan sadaal qurxoon iyo sinaan iyo cadaalad baan kama wada sugaynaaye saldhigaagu waa sharafey sahankaagu waa guuley socdaalkaagu waa nabade safarkaagu waa qayrey iyo semaad barwaaqaade soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow umadaan sannada badan siliciyo dhib soo marayey umadaan sannada badan siliciyo dhib soo marayey adigay ku sugayaano ku sacabatumayaane adigay ku sugayaano ku sacabatumayaane soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow